وحونا فربط التآلف ما بيننا فشد الوثاق لمجد تالي رسول الأنام بناه لنا تأخت على الله أرواح موضوع هرم الكوش وإيقاظ الخوارج والشيخ وعن بإله يقوى فدية أيام كان جيدنا أن نصل جيدية أنا ليس عن إله هو أنفع ولا يتفضل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لوجهك خالصا. أما بعد إخوتي الأعزاء الشيخ واكيد مؤتمرك عنوان كيساها bulshada iyo maaragtay kulley diinta iyo calaaqada ka dhaxaysa iyo dhibka maanta jira. marka muxaadaradii taqwada waa tii soo baxday oo asaasaheed. muxaadaradii fitanka iyo in laga fogaadana waa kii Sheekh Cabdilbaasit ku xijiyay khayr allaha siiyo aad u wanaagsanaa labadii muxaadaro wanaagsanaa oo baxday. tanna waxaan uga hadli doonaa insha allahu tacaala sifaat alkhawaariji qadiiman wa xadiidan. khawaarijta dadka la yiraahdo tilmaamaha ay leeyihiin iyo astaamaha oo sharcigu uu ku sifeeyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam masduuq iyo culummada iyo qur-aanku ay ku sifeeyeen laga daalacan karo kuwa hadda jooga iyo kuwii horaba lagu yaqaano. taasna waxaa keenaysa taariikhda in la qoro oo taariikhda la barto dowr weyn bay ku leedahay nolosha. sababtoo ah taariikhdu waxay sijilaysaa akhdaa'dii hore wixii qaladaad ahaa iyo wixii sawaab ahaa wixii saxan iyo waxa kale. haddii marka taariikhda la akhristo oo la fahmo oo la yaqaano iyo diinta nusuusteeda qofka waxa jira ayaa ku soo baxay wuxuu ku saacidaysaa inuu dhaqso u garto waxa saxda iyo waxa qalad. haddii uusan marka taariikhda iyo nusuusta iyo diinta waxa ay maaragtay wax kastaba ay ka tirid uusan ogaanin hadda waxaa dhici karta qof walbaba inuu shaatica ku soo gashado mahdi uu isaga dhigo isagoo marka balaayo faraha ku wata. hadhowna la yidhaahdo wadaadku baa qalad sameeyey wadaadku baa qalad sameeyey wadaadku baa qalad sameeyey. hadhow markaa dadkii diintii iyo culummadii ay ka fitnoobaan. sababtoo ah awalaa nin caalima wuxuu yidhi nin aamina wax ma khiyaano, laakiin ninaan aamin ahayna inta la aamino wax khiyaano. saa darteed nin culamo khalad iyo halaag ummadda uma soo jiido. anaa hadalkaas odhanaya culimmadii rashaadii wuxuu yidhi markuu bidacada waxa dhibaatooyinka ay keenaan iyo diintii ukhrina uu ka sheekeeyey ayuu matalkaas keeno. wuxuu yidhi nin maaragtay aamina asagoo wax ma khiyaano laakiin utumina hayru amiin waxaa la aaminay ninaan aamin ahayn oo qaa'ina markaasoo wax khiyaano. hadda nin caalim ah oo diinta si u yaqaano waricna ah diinta ilaahayna subxaana wa tacaala kama been sheego mana qabo ummaddana ma khiyaano. laakiin waxa waaye qofaan culimo ahayna culimo loo mooday
qof aan diin lahayn aan diin loo mooday markaasaa dhibku xaggaasoo marka uu ka yimid marka arrimahaas oo kale waxay maaragtay ay qayb ka qaadanayaan in khaladaadka haddii la fahmo iyo cidda khaladka wadata iyo qaabka haddii la fahmo inaan diintan aan maaragtay shaki aan laga qaadin culummada saxdaa oo diinta ka run sheegaysana aan maaragtay aan cugdada laga qaadin wixii khaldan markaa khaladkooda ay ku koobtaan macnaa diintuna ma khaldana culummada rabbaaniyiintana ma khaldana qofkii qalad la yimid asagaa marka qaladkooda marka khawaarijtu waa dadkay diintu sheegtay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu soo sheegay qaarkoodna intuu nabigu joogaba uu arkayba oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ictiraad iyo hormaaso ay ku sameeyeen kabacdina oo nabigu ka sheekeeyo uga digay oo sifaadkooda uu caddeeyey kabacdina waaqic ahaan loo arkay iyo waxoodii waxaanu nabigu noo sheegay inay soco doonaan ilaa kuwa ugu dambeeya ay dajaal ay la soo baxaan oo waxa weeye waa firqo mustamir ahoo maanta ma arkaysa akhlaaqdooda iyo dhaqankooda xun uu daa'ima marka inaan balbaranno si aan u garanno bal waxa aan ku noolahay iyo waaqiceenna waxa jooga tilmaamaha ay kala leeyihiin iyo ciddii sifaadkaas iyo ciddii kale inaan kala arno annaga marka nusuusta aayaadka iyo axaadiidta iyo culummadu waxay yidhaahdaan un baan sheegaynaa hadda inaan dad afka ku taagno ama qof magacaawno wax maslaxa kuma jirto qofka caaqilkaahu haddii uu wax fahmo asagaa markaa wixii fasale kale wixii sifaadkaas le uu ka fogaado wixii kaloo wanaagsana markaa isaga oo sunnada ku taagana markaa uu raaco baxdiga taqriiban 2 saac camal oo noo socon doona insha allahu tacaala ilaahay ha noo fududeeyo laakiin 2 saacna wax ku dhow ayuu ka qiyaasan yahay khidada waa sida soo socda inaan maaragtay khawaarijta xumidooda culimmadu waxay ka yidhaahdeen ka dhaana waxyar marka hore kabacdina tacriifu lkhawaarij khawaarijta inaan maaragtay qeexitaan aan ku samayno kabacdina taariikhdooda lala soo maray noloshooda aan maaragtay waqtiyaalkii ugu muhiimsanaayeen aan xoogaa aan soo koobno kabacdina nusuusta ku soo aroortay oo aayaadka iyo axaadiidta iyo aqwaasha saxaabada iyo taabiciinta iyo culammada iyo sifaadkooda ay ku sheegeen aan soo koobno kabacdina anagoo markaa barbardhig kabacdina waxaan sheegi doonaa sifaadkooda mulakhas nusuustii iyo aqwaasha culammada annagoo sifaadkoodii maaragtay kala soo istimbaadna kabacdina waxaan sheegi doonaa waxyaalaha asbaabta khuruujka saacida oo khawaarijnimada waxyaalaha saacida oo maaragtay ayaa waxyaa ka sheegi doonaa kabacdina khawaarijta iyo soo bixitaankooda maxaa cilaaga oo sharciga uu ku daaweeyey oo maaragtay dhibkooda maxaa looga bixi karaa intaas ayaa insha allahu tacaala aan kusoo gaabinayna awalan waxaa ciwaanka ugu horeeya suuq lkhawaarij wa qubxi madhabihim wa suluukihim waxay culimmadu ku yidhaahdeen khawaarijta xumidooda iyo madhabkooda soo u xun yahay sheekh la yidhaahdo al-aajuri oo kitaab ashariica la yidhaahdo leh oo ardadii abu daawuud saaxibu sunan ka midoo su-aalaadka weydiiyey cilmiga cilmka kitaabkiisana ashariica la yidhaahdo waa kutubaha caqiidada asaaska oo maraajicda waaweyn ah waxyaalaha sunnada ay caan ku tahayna sheega ahlulbidacana firaqdooda maaragtay waxyaalaha iyo qaabkooda ka waran baab dhanoo khawaarijta u guntaday oo kaga hadlay waxaa wixii nusuus ku soo aroortay asaguna oo tacliiq iyo commenti fiican oo saaray sheekaasi wuxuu leeyahay lam yakhtalifu lculamaau culimmadu iskuma khilaafin qadiiman wa xadiidan hor iyo gadaalba ana alkhawaarijta nimankaan khawaarij la yidhaahdo qowmu suu-in dad xun inay yihiin cusaatu lilahi tacaala walirasuulihi alla iyo rasuulkiisaba dad caasiy inay yihiin wain salluu wasaamuu wajtahaduu fi lcibaadati haba tukadeen oo ha soomeen ha salaadeen oo cibaadada ku dadaaleene falaysa dalika binaaficin lahum taasi mid ku shafaacayso anfacayso maa sababtoo balaayo ka weyn ayay ka xawaan wayudhiruuna waxay muujinayaan ayaga daahirka wax wanaagsan baa ka muuqdo al-amru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar dad wanaagga faraya munkarka reebayo laakiin munkarka weyn ayay la imaanayaan
معروف كوينا وابابينا يدينتي وكم بيسمح الجرى ينسى قد الدون وليس ذلك بنافع